madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ahna musharax madaxweyne ayaa hadal ka jeediyay golaha hadal jeedinta ee musharaxiinta xilka madaxtinimada Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud hadalkiisa wuxuu ku bilaabay alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur, gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi, gudoomiye ku-xigeenada, mudanayaasha labada aqal ee sharafta leh, mar kale waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maalinta 15 May, maalin taariikhda Soomaaliya ku weyn oo la garanayo taariikhda dalkan meeshii uga jirtay ahayd dowladnimadeenna iyo istaagidii dowladnimada taariikhda ay ku leedahay waxay ahayd maalin taariikhi ah. sidaas daraaddeed hadal jeedintaani waxay ku wajahan tahay doorashada dhacaysa 15 May haddii alla yiraahdo insha Allah. waxayna ka koobantaa qaybo kala duwan oo aan doonayay inaan dulmar guud ugu sameeyo dalku meeshii uu soo maray, meeshii uu taagan yahay iyo mustaqbalka halka la hiigsanayo haddii alla yiraahdo. waxaanse ku bilaabayaa taariikh nololeedkaygii. dad badani waxaa laga yaabaa inay igu yaqaanaan inaan soo ahaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya. hase yeeshee waxaan xasan sheekh maxamuud, waxaan ku dhashay degmada Jalaaqsi 1955. waxaan dugsiga sare iyo jaamacaddiina ku qaatay magaalada Muqdisho. waxaan shaqaale ka noqday wasaaradda tacliinta oo aan ahaa macallin iskuulaadka iyo jaamacadaha wax ka dhiga muddo. xirfadaydaas macallinnimo ayaa inta badan aan ku soo shaqeeyey nolosheyda. waxaan madaxweyne ka noqday dalka sanadkii 2012. marxalado kala duwan oo dalku uu ku sugnaa ayaan shaqo soo qabannay. intaas markaan uga baxo nolosheyda iyo biografigeyga, waxaan rabaa inaan xildhibaanada sharafta leh aan la wadaago. dalkani 3 aragti ayaa ka jirta. aragti waa midda al-shabaab oo takfiiriga ah, oo dadka Soomaaliyeed dhiigooda iyo cirdigooda iyo banaysatay iyo intii diinta ay ka xarimtay oo dhan kula dhaqma. aragtida labaadna waa hogaamiyaal aaminsan gacan bir ah in dalka lagu haayo oo lagu maamulo dadkana qofkii ka ra'yi duwan la ciqaabo oo la cadaabo. iyo aragtida saddexaad oo ah in dalka lagu hogaamiyo dib u heshiisiin iyo isqancin iyo wadar ogol, oo aan anigu ku faanayo inaan qaybtaas saddexaad u dambayso aan ka mid ahay hogaamiyaasha qaba ra'yigaas. muddo xileedkaygii 2012-2017 dalka waxaan iga qabsoomay howlo badan. waxaan sameynay xasilintii dalka iyo xoreyntii deegaano fara badan oo argagixisadu gacanta ku haysay. waxaan dhisnay guddiyo madax bannaan oo dastuurka sida ku qeexan ah dastuuri. dhismaha kaabayaasha ee dalka ee horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada oo uu ka mid yahay howlkan iyo garoonka diyaaradaha aan garanayno, jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, isbitaallo fara badan iyo dugsiyo. dib u qaabaynta hay-adaha maaliyadda dalka oo ay wasaaradda maaliyadda iyo qaanuunkii maaliyadda iyo integrity organiska ama hay-adaha ka shaqeeya la yiraahdo sida xisaabiyaha guud, handadowraha guud iyo bangiga dhexe. waxaan kor u qaadnay qaabka cashuur ururinta iyo dakhliga dalka oo aan ugu nimiday asigoo aan jirin. waxaan dib u qaabaynay shaqaalaha rayidka ah oo aan ka soo bilownay hoos, aanan u samaynay in ay joogto ahaadaan, darajane ay ku helaan waxa ay mudan yihiin. waxaan qabannay ugu dambayntii doorashooyin aanu dhiig ku daadanin. haddii aan intaas dulmar kooban ku soo ururiyo wixii 4 sano aan xilka hayay hore la iigu doortay qabsoomay qaar ka mid ah, waxaan haddana rabaa inaan dul maro barnaamijkayga siyaasadeed ee mustaqbalka soo socda. waxaan diiradda saari doonnaa haddii alla yidhaaho ugu horreeya amniga, oo ah in dalka dib loo xoreeyo, iyo ah in laga xoreeyo argagixisada magaalooyinka, lana furo waddooyinka magaalooyinka isku xidha oo dalku uu noqdo meel dadka iyo badeecadaha ay si rasmi ah u kala socon karaan
oo isku furan iskuna xiran. waxaan ka shaqayn doonaa amniga la barbar socda garsoor aan ku bilaabi doono samaynta guddigiisii madaxa bannaanaay ee dastuuriga ah ee adeegga garsoorka, guddiga dib u qaabaynta shuruucda dalka ka jira. shuruucda dalkeenna shuruucda ka jira in badanoo ka mida waa shuruuc wakhti hore aad u fog la sameeyey oo u baahan in wakhtiga hadda ah kuwa la jaanqaadi kara laga dhigo. meelaha qaarkoodna muddo dambe ayayba soo kordhano shuruuc ma laha. shuruucda loo hagaajiyo wixii aan muddooyinkii lasoo dhaafay aan la qabanin. waxaan sidoo kale aan ballan qaadayaa dalkan iyo dadkan in ay sharaf iyo karaamadooda aad iyo aad loo ilaaliyo. waxaan ballan qaadayaa qof muwaadinoo Soomaali ah inaanan dibadda loo dhiibin oo aan dal kale loo dhiibin. waxaan ballan qaadayaa qof Soomaali ah fikirka siyaasiga uu aaminsan yahay awgiis inaanan loo caburin loona cadaadin. waxaan idin ballan qaadayaa dalka qaybo ka mida iyo deegaanada qaybo ka mida inaanan lagu soo rogaynin cunaqabatayn iyo cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed. waxaan idiin ballan qaadayaa dalka inay ka dhaqan gasho dib u heshiisiin, taas oo laba qaybood ama laba weji leh. dib u heshiisiinta bulshada oo deegaanada iyo degmooyinka maxalliga iyo beelaha dhexdooda ka socon doonta, iyo dib u heshiisiinta siyaasadda oo dadka Soomaaliyeed aan doonayna inay aasaas u noqoto dib u heshiisiintooda siyaasadda dastuurka dalkan uu yeelanayo. haddii dastuurka lagu heshiiyo iyo qodobadiisa oo dhan oo dadka Soomaali isla qaataan, waxaan aaminsanahay dib u heshiisiinta siyaasadda inay meel gaartay laguna dhaqmi doono haddii alla yidhaah. waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado hadalkayga qaybaha ugu dambeeyo ah dimuqraadiyeynta. dalkani kama suurowdo inay dib ugu soo laabato diktatoriyad oo qofii xukunka iska joogo asigoo aan haysanin sharciyad ama ogolaansho dadka dhexdiisa ah. dalkani kama suurowdo koox gaara iyo hayb gaara, dad sheeganaya iyo degaano gaara dalka xukunkiisa annagaa la wareegno oo haysanno inay dhahaan Soomaaliya kama suurowdo. dhaqan ahaan Soomaalidu waxay u tahay dimuqraadi, ilaan waxay ku wada nooleed wada tashi iyo xeerar la yaqaano oo la ixtiraamo oo laga dambeeyo, dadkuna ay ku kala dambeeyaan. waxaan asaas uga dhigaynaa dimuqraadiyaddeenna xisbiyada siyaasadda oo aan doonayno in qofka siyaasiga ah fikirkiisa la yaqaano oo aanu dalka hoggaankiisa iyo taladiisa iyo mustawo kastoo ay leedahayba qofna aanu imaanin asigoo aan la garanaynin ujeeddooyinkiisa aragtidiisa siyaasadeed iyo dalka wuxuu ka damacsan yahay. xisbiyada siyaasadda waa meesha lagu soo bandhigo aragtida siyaasadeed ee dalkan lagu hoggaaminayo mustawo kasta oo uu joogo. waxaan abuuraynaa nidaam dadka Soomaaliyeed inay ku kalsoonaadaan hay-adaha dastuuriga ah iyo hay-adaha dowladda oo aan loo arkin kuwa u danaynayo dad gaar ah ama deegaan gaar ah. sidaas daraaddeed dhisidda kalsoonida dadka ee ku salaysan dimuqraadiyadda waa aasaaska aan doonayno dimuqraadiyeynta inay sal u ahaato. waxaa la sii xoojinayaa oo aan daadejin doonnaa haddii alla yidhaahdo nidaamka federaalka oo ilaa iyo heer degmo iyo heer tuulo la gaarsiinayo, si mabaadidii federaalka ee ahayday xukunka iyo dowladnimada in loo dhoweeyo dadka meesha ugu dhow oo dadka dhexdiisa in la geeyo taladooda iyo talada dalka guud ahaanba. waxaan xoog saari doonnaa arrimaha dhaqaalaha. waxaan xoojin doonnaa kor u qaadista dakhliga dowladda ayadoo sifo sharci ah lagu qaadayo dakhligaasi, ayadoo la tixgelinaya la eegayana duruufaha dalka iyo dadka mar walba ay ku sugan yihiin. waxaan ku dadaalaynaa xaqiijinaynaa ilaahay idankiis in dowladda Soomaaliya ay ku tiirsanaato dakhli gudaheeda ka yimid, aan qarashka dowladdana ku soo xadidno hadba awooddeenna dakhligeenna gudaha inta uu la egyahay, ee aanan mar walba sida hadda aan soo ahayn waayahan dambe iyo bilowgiiba inaanan ku tiirsanaanin qarashada dibadda
kaalmada caalamiga waa u baahannahay laakiin kaalmada caalamiga horumarinta iyo dibdhiska waa inaan ugu baahnaa ee qarashaadka dowladda iyo running costiga dowladda inaan kaalmo caalami ah ugu baahanno maaha si aan dowladnimadeenna u lahaana waa inaan jeebkeenna iyo xoolaheenna aan ku lahaanaa dowladnimadeenna siyaasaddeenna arrimaha dibadda siyaasaddayda arrimaha dibadda waxay ku salaysnaan doontaa hal mabda oo aad u weyn oo ah soomaaliya inaanay yeelanin cadow dibadda ah oo aan annaga soomaali ahaan aan ka soo shaqaynay ciddii dibadda ah oo dal kale ah oo dowlad kale ah oo iyadu cadaawad noo qaadayso nala dirirayso waa gooni waanaan muxuu ah sida aan u baaji karnaan u baajina laakiin dalkan waa inaan laga abaabulin cadaawad iyo maxaanku idhahdaa qalalaase ummado kale lagu qaadaya hadday daris yihiin iyo haddii ay naga fog yihiinba waxaan cilaaqaad toosan oo deggan la samaysan doonaa caalamka oo dhan si gaarana dalalka aan saaxiibbada nahay iyo kuwa aan walaalaha nahay waxaan halkan ka xusayaa inaan si gaara dib u eegis dhaba lagu samayn doono cilaaqaadka ka dhaxeeya dalalka aad iyo aad noogu soo gurmaday oo dhiiggooda iyo dhacaankooda ummaddan inay badbaaddo oo ay sharafteedii soo ceshato u huray oo ay ugu horrayso maalan dalka jabuuti aan walaalaha nahay ee aan wadaagno wax badan waxaan soo celin doonaa kalsoonida dowladda soomaaliya lagu qabo ee caalamku hay-adaha caalamiga ah ay ku qabaan dowladaha caalamkana ay ku qabaan si wada shaqaynteenna caalamiga ay u noqoto mid maxaanku idhahdaa shaqaynayso walaalayaal igama filaysaan in aan mushaakilaadka siyaasadeed ee dalka ka jira in qori lagu xalliyo in caburin lagu xalliyo in cabsigelin lagu xalliyo dowladda aan hoggaamiyanayo waxay aad uga shaqayn doontaa qofka soomaaligaa inuu maskaxda xor ka ahaado caqligana iyo damiirkana uu xor ka ahaado aanu ku noolaanin cabsi aanu dhinacyaha fiirinin markuu ra'yigiisa cabirayo yaa dhinaca kaa jira iyo xagga kaa jira aanu dhihin ee ra'yigiisa saxda ou cabiro sida waxaan waasicin doonnaa saaxada siyaasadda ee looga hadla arrimaha siyaasadda ee looga doodo ee dadka soomaalida si xornimo ah ra'yigooda ay ugu soo bandhigayaan ma celin doonno dadku inay ra'yigooda si nabad ah ku soo bandhigaan haddii alla yidhaah waxaan joojin doonnaa oon raaci doon sida dastuurku qabo dadka soomaaliyeed isu imaatankooda iyo wadatashiggooda in aanay fasax dowlo u baahan haddii aanay amuuro amni dabcan aanay jirin laakiin dadku inay isu yimaadaan wada tashadaan ra'yigooda cabbiraan waxa ay diidan yihiin ay cabbiraan oo si ay u sheegaan nabad ah marna inaanan fasax lagu xirin isu imaatinka muwaadiniinta soomaaliyeed waa waajib dastuuri ah oo aan u baahnayn in fasax loo soo qaatay iyo in la waxeeyo ugu dambayntii waxaan rabaa inaan ku soo gunaanido hadalkayga fulay xantii ma moogaa la yidhi kaftanka ah mudane xasan sheekh baskiisi waa buuxaa waxaan rabaa inaan u sheego xildhibaanada sharafta leh iyo ummadda soomaaliyeedba xasan sheekh bas ma wata ee tareen dheer aan buuxsamayno wataa aad iyo aad aa u mahadsan tihiin waxaan ku soo gabagabaynaa codsanayaa in aad igu aamintaan xilka hoggaaminta dalka ee muddada aad iyo aad aa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu